بسم الله الرحمن الرحيم. أولا رمضان كريم والسلام يا أرضية الضمان شرفت الإيميل كستو أي شوغان ما أنت وحين قاعدين مادة في الصومالي قاعد فصل كأفراد العتب كاستديدات عتب كاستديدات وحكا الله يسيح وشنت حفظها آخر سكي قرست وحكا هوست جيه وكسي جرا عذرها هاليستا سيدا سنكرتا عذرها هاليستا سيدا سنكرتا يدي كركا تي بيد HIV AIDS واي أين هوست دقن وتشدينك عطك وقال له وحويه سيدا عينو كفهمينو برطوه وينو وقاد عذرها هاليستا يكوه كاي واي marka muxuu ku ogaanayaa lambar 1 inuu kafee jignaadaan waxyaabaha keena cudurrada halista marka labaad qoraalkiisa bartuhu waa inuu kala garan karaa aqoonsadaana marka saddexaad aqoonsadaana cudurrada halista iyo waxa keena marka afraadna kala saaraan noqdaan wax la fahmi karo isagoo raacaya ababka qorista marka uu qorayo ardaygu waxa la rabaa inuu farta uu qorayo uu fahmi karo isagoo raacaya shuruudaha iyo astooyinka loogu talagalay waay inta markaynu ka gudubno 10keennii koowaad aynu galno oo cutubka wuxuu noqonayaa cudurrada halista marka laga hadlayo waxay u kala baxaan kuwa faafa oo la kala qaado iyo kuwa aan faafin laakiin la kala dhaxlo ولو هذا عذرته هراء إنه نقاني كوا كدرنا أي مادين أو وقت كأنه هذا كنت إنه كوفيد 19 بهالي هذا عذرته هراء يير فريستا وصاب حي هذانا لكن وحلون عصبان عذر كيسولي لهيل دودي سلهيل هذانا إنه وحن راعينا كوا إنه هراء إنه عادي إنه نقاني مركا إنه سيرد تاجلو عذرته فافا واقو عذرته فافا مركا الجولية وحوي عذر لك على قاضو يكوان لكن قادم عذرنا لكن قادم إنه مركز سوق قادم إنه لما بركو HIV AIDS HIV سيسا وعى كان فيروس مركز دمبينا وحنا نقضى حنون HIV بكتيريا اللي هذا وعى كان فيروس اللي هذا HIV كدمنا وحنا نقضى AIDS حنون كاسيدا إنه ابن هاي وحنون عند الله هاينين and سجلفتي سنوات كده دمبي أيو صوب أيو الدنيا هذا قف أفعال الوجادي بالكاس مركا وحليهاي وحنونada halista oo aan dawada loo hayn aad iyo aadna nimankan qoladan cilmi sayniska waxay ku tilmaamaan in uu yahay iyagu waxyaabo kale ay isticmaalaan laakiin inagu waxaynu hadaynu islaamnahay aynu leenahay waa ciqaab ilaahay oo qof galma aan toos ahayn sameeyay marka baalka waxa lagu kala qaadaa waxyaabo badan qaabab loo kala qaadaa jira يقاوبه كفيدو وعكمده قلبك لو ودا خيرته وقف دعامده استابتا ديغه وياباس ايو كتغا waxaan u maleynayaa de biological aad leeyahay ku faahfaahinaya laakiin argaynagu waxaan doonaynaa inuu guud ahaan sii marro marka maxaa laga rabaa inta xadar badan waxa kale oo laga qaadaa galmada waxa kale oo laga qaadaa injectionska waxa la yiraahdo irbadaha la isku duro waxa kale oo laga qaadaa qof xanuunkii qabay wax loogu xiirtay oo dhacaankiisa taabtay qofka kale loogu xiiro marka waxa la rabaa in taxadar badan laga yeesho cudurka HIV waa dilaa qofku waxa laga rabaa inuu xafido farjigiisa oo uu guur xalaal mooyo qofka uu guursanayna uu hubiyo dhig la baaro dhigiisa waayo dad badan baa waxa dhacday in loo qariyo xanuunka qayntaas inuu kaga tagaynaa waxa ilaahay noo dirana ma waana sinada waana galmada aan munaasib ka ahayn ama ilaahay raaliga ka ahayn oo la sameeyo waayo cudurka ku xigay tiibeyda isaguna wuu fidaa wuxuu ku fidaa hab neefsi buu ku fidaa xanuunada halista buu ka mid yahay inkastoo isaga dawadiisa la isaga bakteeriyada keenta waxa la yiraahdo tuberculosis waxaana loo soo gaabiyaa TB isagu wuxuu ku yimaadaa habka neefsiga ayaa lagu kala qaadaa waxaana dhacda in qofka haddii aanu dawo qaadan oo qolku la seexdo oo aad la seexato oo ku neefsado xanuunkii qaado laakiin hadduu dawadii qaadanayo وأد أو حكومة أو كلنا نفسه واحد بقوليه ولا يقعد كلام تشتو لكن مرمر بقى واحد بعدين إن كيوري بالنقط يعني واحد من الدواين كان بكتيريا دي واحد لقب صنع ساقفكي وهاي الدواء أنتوا وكلا جوجوينية كلا جوجوين ده عشان مركز حارس أيلام أنت وعند كل جود بين عذر هذه فافي مركز إكسام روح حكم التيب إذا أوكي جورجو
haddeer 4 bilood meelaha waa inaan la degin baa lagu leeyahay qofka hadduu xanuunkaa qabay uu ku jiro ilaa rinjiga iyo daaqadahana muddo loo furayo albaabada ay hawa gasho waayo bakteeriyadii ayaa ku kaydsan gidaarka guriga intaa markaynu ka gudubno waxaynu gelaynaa cudurrada aan faafin cudurrada aan faafin waxaa ka mid ah cudurrada aan faafin laakiin la kala dhaxlo waxaa ka mid ah sonkortu sideedaba waxay u dhacdaa qaab hidaysi bay u timaadaa qofka si kalena way ugu dhacdaa waxay ugu dhacdaa ganac oo shaqayn waaye qofku marka uu cuntada cuno waxaa laga yaabaa xamaatidu inay dheecaama sii dayso dheecaamadaas oo u sahla ganacu inuu cuntadii si fudud u burburiyo wuxuuna u shaqeeyaa qaab tuujis oo kale ah markaasuu cunadii wuxuu kala saarayaa wixii faytamiinis iyo wixii saxaraa iyo wixii nidaamku kala waxaynaya waxaa kaloo isna aad shaqada ugala qayb qaata keliyaha oo isna filtara oo wax sifeeya labadaasiba waxaa laga yaabaa inay shaqadii dii ay yaraato ay gabaan daadis waay marka cunadaasi ay gubato ay guban weydo ayaa jirkii wuxuu waxaynaya waxaa kormaraya sonkortii baa kormaysa macaankii baa maraya sonkortii oo guban waayeysa saasay ku timaadaa laakiin inta badan waxaana feejignaan oo ah oo lagaga digtoonaadaa alamintada iyo jimicsiga in qofku jimicsi badan uu sameeyo ama exercise badan uu sameeyo ama orod badan uu sameeyo ama shaqo adag uu qabto markaa waa keenaya laakiin fadhiga badan baa aad ugu nugul iyo cuntada oo laga dhergo oo lagu seexdo baa keenta inta badan dhiigkarka isagana wuxuu ka mid yahay laakiin waa la kala dhaxlaa sonkorta oo waxaa dhici karta in haddii aabbaha uu qabi jiray uu kugu dhalay aad dhaxasho dhiigkarka oo kale isagu waxaa keenta waa dhiigga oo halbowlayaasha qaadaya ay ama xididada ka qaadaya intay socon waayaan ay xidhmaan ay xidhan sameeyaan xidhan marka ay sameeyaan dhiiggii halka uu maqaysmo qulqulkii dhiigga uu xubnaha jirka ku gaadhsiinayo gaari waayo kadibna xumad dheeraada qofka ay ku keento oo barakshirkii wadnaha uu wax ku bamgaraynayay oo hoos u dhaco baa keena dhiigkarka baa inta badan keena marka isaguna wuxuu noqdaa xanuunno la kala dhaxlo oo waalidka hadduu qabay oo kugu dhalay waxaa laga yaabaa inuu aadna muddo dambe ama abaadoo yarba uu kugu soo baxo marka xanuunnada sida badan isaga dhiigkarka wax kale lagaga taxadirayaa ma jirto laakiin wuxuu noqdaa uun qofku inuu iska ilaaliyo waxyaabaha dhiigga kicinaya sida cusbada iyo wixii dhanaaniyo waxa laaliyo wixii xanuunnadaasna marka qofku sokorta iyo dhiigkarka qabo waxaa muhiima inuu saaxiib la sameeyo oo la saayir wixii kicinaya oo hadba ka ilaaliyo intaa marka aynu kaga gudubno labada xanuun waxaynu soo qaadanaynaa gabay aydiska lagaga hadlayo gabaygaas aydiska ninka kaga hadlayaa bal waynu isdul taagaynaa waynu sharaxaynaa sida uu aydiska uga hadlayo wuxuu ku bilaabay saalaxow haddaan ku gedbaxo geeri baan ahay qiyaastii waxa weeye waa nin xanuunkani ku dhacay marka saaxiibkii buu wuxuu u sheegayaa ku halqabsanaya saalax la yidhaahdo haddaan kuu gedbaxo waxa weeye haddaan kuu jarabaxo ama xogtayda kuu sheego weeye bukaan baan la gogol jiif ahaa guyiyo dheeraade sanad iyo badh baan xanuunsanayey oo aan gogol jiifay isbitaalka goortaan tegay iyo golaha daaweynta cusbitaalka iyo meelihii wax lagu daaweynaya markii aan tegey markay baaritaankii galeen cudurka ii gaara cudurka bal layga baaraya aniga markay saana gooni u baareen oy gees kastaba fiiriyeen lana gorfaynayey dhinac kasta markii laga fiiriyo aad loogu noqnoqday wax gunaanadkii laygu yidhi xaajo guud weyn arrin aan qaadan waayey oo aad iila adkaatay baa laygu yidhi cudurkii wax gaasirahayaa meesha soo galay xanuunka aydiska la yidhaahdo ee khatarka gaasiraadda waxaa la yidhahdaa qallajinayay ama qofka caataynayay ama dhuubay gacmahayga baan eersadiyo garashadaydii gabaygaana intaas baynu kaga tegaynaa wuxuu ku leeyahay anaana eedan iyo waxaan lahaa waxaan sameeyey gogollaaf ama waxaan sameeyey galmo aan munaasib ahayn baan sameeyey daadisway baa marka ay ku timi in aan xanuunkani igu dhaco kaana intaasaynu kaga gudbaynaa waxaynu qaadanaynaa curiska sidee loo qoraa bal horta marka wax la qorayo curus sidee loo qoraa curiska marka la doonayo in la qoro casharkeenu xirfad qoris iyo qoraalba jabtarkeenu ahaa marka waxaan doonayaa bal horta inaynu ardaygu ogaado ama uu barto sida wax loo qoro sida wax loo qoro wax kasta oo la qorayo luuqaduhu waa isku mid hadday ingiriis noqoto iyo hadday carabi noqoto marka waxa inaad afka soomaaliga ku fahanto sidii loo qori lahaa si labada luuqadood kale ay kaaga kalmayso wax kastoo aad qoraysaa waxay leeyihiin wax la yidhahdo horudhac ama carar waxaad shayga aad ka hadlaysaa qaybtiisa hore wuxuu noqonayaa carar buu noqonayaa tusaale ahaan markaynu soo qaadano aynu ku soo qaadano haddeer cudurrada faafo oo kale maxaynu horudhac gelin karnaa horudhac waxaynu gelin karnaa waxaynu odhan karnaa waa maxay cudurrada faafa calaamad su'aal
calaamadaha in laga tago maaha shantan qaybood ee ku hor qoranna waxaa la rabaa in lagu eego cudurrada faafa waxaa la yidhahdaa cudurrada la kala qaado ee sida tooskaa loo kala qaado baa waxaa la yidhahdaa cudurrada faafa joogs haka baan markaa ka dhigayna cudurrada faafa waxaa lagu gartaa dadka oo ay si u kala qaada ama meel wada jooga ama meel kale oo kala qaada joogs baynu halkaa ka dhigayna intaana waxaad ku garanaysaa inay tahay carartii ama horodhicii casharka waaya nuxurkii wuxuu noqonayaa ujeeddadii casharka loogu talagalay ama sidii la rabay muxuu nuxurkaagii noqonayaa nuxurkii wuxuu noqonayaa inaad cudurradii la kala qaadayay aad mid ka mid a soo qaadato tusaale maxaad soo qaadanaysaa xanuunka la yidhahdo h i v-ga sidee loo kala qaadaa waxaa lagu kala qaadaa irbadaha waxyaabaha lagu xiirto galmo aan munaasib ahayn oo aan xaaskaaga ahayn oo sharciga aan waafaqsanayn waxaasoo dhan waxay noqonayaan nuxurka iyo ujeeddadii galatay gabagabadina waxay noqonaysaa waxaa lagaga taxadari karaa adiga oo ka taxadara iskana ilaaliya xanuunkaana aan cidna qalabka kula xiiran cidna aan irbada la isticmaalin marka aad doonayso inaad aad guursatona baadho qofka aad guursanayso saddexdaa qaybood bay markaa ku wada qaybta hore waxaynu kaga hadalnay xanuunku waxa uu yahay faafa qaybtii dhexe nuxurkeena waxaynu kaga hadalnay waxa uu xanuunkan keena iyo asbaabta sida loo kala qaado qaybtii dambena sida looga taxadarayaynu kaga waxaynu mar walbana waxa marka curuska la eegayo lagu waxeeyaa shanta qaybood baa lagu saxaa quruxda farta oo aad eegayso quruxda farta waxa weeye qaabka ay tahay xarafku wuxuu ka bilowdaa new paragraph hadduu yahay sadar cusub hadduu yahay wuxuu ka bilowdaa xaraf weyn joogsi hadduu noqdona waxaa gala xaraf weyn haddii ay soo gasho magacmeesha soo galana waxaa gala xaraf weyn saddexdaa goor ayuu qaataa waxaana muhiima oo la rabaa inaad isticmaasho astooyinka loogu talagalay hakadka iyo joogsiga fikirka wanaagsan curiska aad ka hadlayso inuu fikir wanaagsan ku salaysan yahay waxaa kaloo ka mid ah astooyinka loogu talagalay calaamadaha punctuationka ama hakadka ama joogsiga ama calaamad su'aalka ama calaamad layaabka ama qoysaynka adigu wax allaaliya wixii calaamada ee qoraalka loo isticmaalo oo dhan haddii aanu qoraalkaagu aanu xarako lahayn wax allaale iyo wuxuu samaynaya oo macnahay ma jiro isku xidhka erayada baa iyana muhiima isku xidhka erayadu waxa weeye in hadalkaagu sidii aan hadda isu waafajinayo cudurka faafa aan uga hadlayey kadibna aan keenayey wixii keenayey iyo wixii lagu kala qaadayey markii dambena sida la isaga ilaalinaya aan uga taxadarayay waxaa la rabaa inaanu hadalkaagu kala baydhino wixii tobigii aad ka hadlaysay aadan ka bixin waayo markii hore haddaad doonto waxaan ka hadlayey cudurrada faafa mar qura cudurrada aan faafin weynaanan u gelin adeegsiga erayada culus wixii murtiya aad u isticmaalayso sida maahmaa aayad qur-aana xadiis gabay geeraar wixii aad u soo qaadan karto halku dhege oo weliba qaala allahu tacaala iyo qaala rasuulullaahi dee waa kasii muhiimsan yihin haddaad aayad iyo nas iyo xadiis waafajinayso gabay iyo sugaanna waad ku dari karta intaana waxaynu ka tegaynaa qaabka curiska loo qoro marka ardaygu waxaa la rabaa ama bartuhu inuu aad uga fiirsado waxa uu qorayo waxa uu qorayaana ay noqdaan wax la garan karo waaya casharkii koowaad maxaynu ka diyaarinay su-aalaha soo socda su-aalahan maxaynu nidhi waa maxay cudurrada faafa cudurrada faafa in badoraynu ka sheekeynayno inu sharaxaynay ardaygu halkaasaa lala rabaa inuu ka fahmo casharkii inuu fahmo yeen kale maxaa keena cudurka h i v aids waxaa keena sharaxaadeenii baynu waa laga rabaa tiibayda sidee loo kala qaadaa sida loo kala qaado iyana waa la rabaa inuu bartuu keeno hababkee laysugu gudbiyaa h i v su-aasha shanaad sonkorta unugyadee wax yeelaysaa sheeg cudurrada la kala dhexlo waa su-aasha lixaad su-aasha toddobaad cudurrada faafa sidee looga hortegi karaa su-aasha sideedaad maxaa gabayga aad ka fahantay gabaygan aidiska marka ay noqoto maxaad ka fahantay maanta oo aynu qaadannay cutubkii sideedaad casharkiisi koowaad su-aalihiisi oo ka koobnaa qaybahan aynu soo marray oo dhan wuxuu inoogu egyahay halkaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu